السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسينا ما تحكوا سبسين هاي سيدا نقول سمين لهين company file وحلي هذا سيدا سمين لهين مركا ودرسيني software كوديه سأن دروس أنا وشقين تونا software كوديه درسي نوره ومركا وحنا ما تدياسنا شركة دني من دياسنا مركا وحنا هو الرسم قبل أنه حتى هنا هرت برنامج صفرنا برنامج نوع عاصو كليه مركا سيدا هو صفرنا waxaa laga yaabaa adiga inuu ku soo saaray nooc ka duwan sidan uu aniga ii soo saaray yani xagga foomka sida uu soo saaray bayr kala duwan sababtoo taano waxaan isticmaalayaa 30 shay bilaash kaan isticmaalayaa anigu ma soo iibsan marka adigu haddaad programka aad soo iibsatay oo active garaysay sidan si ka duwan buu soo saaraya laakiin waxa isku mid ah waxa meesha ku yaala aniga igu yaala iyo waxa adiga ku yaala isku mid oo aha optionka ugu horeeyo oo haddaad doonaysid inaad company file sample haddaad doonaysid inaad furtid ama aad adigu abuuratid shirkadaadii company file-keeda oo imika intaan doonayna ah iyo ta saddexaad oo aha shirkad sii jirtay oo company file hore loo sii sameeyay haddaad doonaysid inaad furtid marka inagu maanta waxaan doonaynaa inaan company file-keena samaysano maanta inaan imika abuuranaan doonaynaa marka taasaan doonaynaa waan leenahay taa noogu dhufo markuu sidan kuu soo saaro screen-kan markuu sidan kugu soo furo laba khiyaar baa meesha yaalla midka u horeeyo oo aha setup-ka inaad bilowdid oo su'aalo yar baa lagu weydiinayaa kadibna company file-kaaga sabab lagu sameeyaa halkan hadda arkaysid other options kala jira oo hadduu shirkad hore sii jirtay file-keeda haddaad doonaysid inaad furtid ama shirkad hore oo ku shaqaysan jirtay program kale ayaa doonaysaa inaad maanta u soo wareejisid programkii QuickBooks inaad soo wareejisid taana waa khiyaar كصدحاض ولينك قدام بيقولوا إنه دوني نبى وحوي هاي advanced setup يا كلا setup كلا وحيكون كل دوينهين كان سؤال يربال ويدينيا كان interview كسؤاله سكبر بال ويدينيا مركا إنه كان دوني نماذج إن سمعنا مركا تنا كوسو صاريا سكرين كان مركو كوسو صاروا فورم كشركة هذا معلومات كذا بحينيسا معلومات كشركة وحاوه رأي مجا شركة هذا magaca shirkadaada xaga ku qoro inagu maadaama on trainings kaga qaadanayno sida baan iskaga qoranayna meesha keyboard-kaaga halka tab-ka yar taabo si uu hoos kugu dejiyo legal name-ka shirkadda magaceedii si uu hoos kugu soo dejiyo legal-kiina oo taa uga dhigo haddii uu legal name-kaaga iyo shirkadaada magaceedu kala duwan yihiin waad kala bedelaysaa legal name-ku waa magaca shirkaddu cashuurta lagaga qaado dawladda marka inta badan waa isku mid intan magaca yare u horeeyo waxaan ahayn intan kala khiyaar baad u leedahay inaad buuxiso iyo inaadan buuxinin yani waa optional laakiin halka yare ugu horeysa shirkadda magaceeda baa yaadan ka tagi karin oo waajib tahay inaad buuxisid intan ka hooseyso dhan street address-ka halka aad degan tahay maaragtay shirkadaadu halka ay xarunteedu tahay magaalada aad joogtid wadankii number-kaagi fax haddaad ay jiro email-kii website-kii intaas oo dhan waad buuxinaysaa haddaad adigu u baahan tahay waana shirkadaada macluumaadkeedii faa'iidada ku jirta inaad buuxisid waxay tahay marka aad la tacaamulaysid ama customerska ama vendorska warqad ama invoice ama bill iyo macluumaadkan intuu halka waxaad ku qorto toos warqadda ugu qoraya marka inagu imika ma buuxinayno insha Allah waxaan tusi doonaa meel kale oo haddaad halkan ka tagto ama aad wax ilowdo ama ay shirkadaadi meeshiiba bedelato ama wax walba oo doonaysa inaad ka bedesho meel laga bedelaan in tusi doona insha Allah marka imika iska dhaafayna next marka tiraado wuxuu ku soo saarayaa industry-ga wuxuu yahay shirkadaadu noocay tahay baad halkan ka dooranaysaa mid walba waad eegaysaa shirkadaadu midda ay tahay baad ka dooranaysaa hadday midda ay tahay aad ka weydid midda ugu dhow baad dooranaysaa midda kuugu dhow shirkadaada isku dhow yihiin inaad isku qabataan ayaad ka dooranaysaa marka wuxuu faa'iidada kuugu jirta inaad tan mid ka doorataa waxay tahay wuxuu ku diyaarinayaa chart of accounting ku habboon shirkadaada marka hoos u soo soco mid walba eeg si tartiibtaada u eego midii ku anfacda marka ay shirkadaada ay isku mid yihiin ama ay isu dhow yihiin ka qaado inagu imika general product basic business aan iska doorano next halkan wuxuu ku soo saarayaa su'aal uu ku yidhi how is your company organized sidee baa loo organize gareeyaa shirkadaada shirkadaada ma hal qof baa iska leh ma dad dhowr qof baa isku leh ma waxa weeyaan iskaashato yani nooc ay tahay shirkadaadu oo sidee loo organize gareeyaa marka faa'iidada ku jirta waxay tahay su'aashan haddii aad doorato mid ka mid ah intan haddaad doorato wuxuu ku diyaarinayaa
form kaas oo formka wax kala ma aha waa form canshuuraadka lagu bixiyo marka mid ku tahay waad ka dooranaysaa laakiin inaga ahaan waxaan maadaama program America yahay inaga waxaan inama quseeyo marka mar walba other and non baad iska dooranaysaa formka canshuuraadka inagu nooc kuma bixino marka next baad leedahay first month of your fiscal year baad dooranaysaa sanad maaliyaedkaaga bisha kuugu horeysa halka ayaad baad ku dhufanaysaa haddayna January ahayn kuwan kale aad ka soo dooranaysaa miday sanad maaliyaedkaagu bisha kuugu horeysa haddii January intahayna January aad isku daysanaysaa inagu imika taan iskaga dhaafno next baad leedahay waxaa laga yiri administrator password halkan geli yani passwordku waa muhiim inaad gelisaa waa sensitive halka hadda arkaysid case sensitive buu ka yiri yani waa shay xasaasi ah waa shay muhiim ah shirkadaada xoog muhiim u ah inaad password ku gelisid xagga hadda arkaysid optional buu ka yiri imika waad geli karaysaa la waana ka tagi karaysaa laakiin muhiim buu ku yahay insha Allah marka aynu ka shaqeynayno userska loo sameeyo sidii iyaga meelaha ay ka shaqeeyaan loogu kala cayimo markaynu halka ka shaqeynayno inuu eegi doonaa password ku xiran doonaa laakiin imika waan iska dhaafaynaa marka imika sida waxaa noogu dhamaaday file kani company-gii baa waa laynoo sameeyay imika marka create baad leedahay meesha aad doonayso inaad dhiganaysaa shirkadaada filekeedii anoo imika xagga iska dhiganaynaa okay save marka markii programkii shirkadeena sida ay noogu save gareeyay baa interviewgii baa noo soo socda haddaad arkaysaan meesha ayay easy step interview ku qoran tahay mar walba oo su'aal ka jawaabo meesha ayay cagaarka hore way soconaysaa ilaa ay ka dhamayso oo halka ayay cagaarka uu ka buuxsamo inta cadaanka ka buuxsamo marka su'aalihii baan sii wadaynaa halka next wax su'aal kuma taalo what do you sell maxaad iibisaa buu ka yiri ma service baad bixisaa ma product baad iibisaa mise labadaba waad iibisaa service waad bixisaa product waad iibisaa inagu imika labadaba inaynu aragnaan doonayna oo baranno marka booth baan dooranayna adigana hadda service imika bixisid oo dan ogeyn mustaqbalka inaad product bixin doontid iska dooro booth hadda imika product EBC service inaad bixin doonto xataa aadan ogeyn mustaqbalka booth iska dooro wax dhiba kugu ma hayso naga sire do you charge sales tax marka aad macaamiishaada wax ka iibiso canshuurtii ma ku dul charge garaysaa canshuurtii ma dul saarataa imika inagu noo iska dhe hadda aad doonaysid inaad furatidna insha Allah waxaynu arki doonaa meel aad ka furan doontid marka casharaanta soo socota do you want to create estimates in QuickBooks estimates ma doonaysaa inaad QuickBooks ku samaysatid yes iska dhe insha Allah ki estimates ku waxay tahay waan arki doonaa si fiican iyada faahfaahsan tracking customers order in QuickBooks customers order ma track garaysaa QuickBooks ka dhexdiisa iyadana waan arki doonaa waxay tahay yes using estimates in QuickBooks estimates QuickBooks ma ku dhex isticmaashaa estimates ku wax kale ma aha waa customers kaagu markay bisha dhamaato ma faahfaahin ma siisaa ku saabsan waxa aad ku leedahay waxa iyo wixii idin dhex maray ha iska yes using progress invoicing ma isticmaashaa isagana insha Allah waan arki doonaa misaal ahaan baan ugu qaadan doonaa sidoo u shaqeeyo estimateska aan imika markuu dhigto soo dooranay isla shaqeeyaan oo markaad qofka estimates u sameeysid yaad ka sii sameynaysaa estimateska aad progress invoicing ka sii sameynaysaa iyadana waan arki doonaa yes managing bills you owe lacagaha lagu leeyahay ma track garaysaa oo ma manage garaysaa baad leedahay sababtoo tahay yaa lacag kugu leeyahay imisuu kugu leeyahay waxaas oo dhan la socodto waa muhiim nagastida tracking inventory in QuickBooks inventory ma track garaysaa oo bakhaarkaagu QuickBooks inuu kula socdo marba waxa ku yaala waxa ku haray imisaan uu mar walba ku sheego oo koodhanaya 20 kiish baa ku taala ama 10 kiish baa ku taala uu mar walba kuga soconaya yes baad leedahay time kama track garaysaa QuickBooks ka oo customers kaagu misaal ahaan yani ma ku biil garaysaa project intii waqtiga ku isbaangareeyeen intii uu projectkaasi qaatay yani waqtiga ma ku biil garaysaa yes iska dhe employees ma leedahay shaqaale ma leedahay yes dhe employees keenuna waa employees caadi ah shaqaale caadi ah yes dhe nagasti waa sii wadaysaa marka xaggan
waxba aad khiyaaro dowlad ma jirto next ma iska leedahay waxa laga yidhi maalinta aad u soo wareejinaysid information kaaga ama datadaada QuickBooks-ka dooro ma fiscal year-kii aan imika soo dooranay shirkadeena aan ka dhiganay bisha koowaad koodeeda mise waa maanta laga bilaabayaa hadda taa hore dowladda waxa laga baahanayaa inaad soo xareysid transactionadii dhacay ka horeeyay imika inaad soo diiwaan gelisid xaggana lagaaga baahna marka inagu inaan soo diiwaan gelina doonina taasan dooranayna next halkan marka soo gaadho wuxuu ku diyaariyay uu ku tusinayaa review ku sameyn karaysaa sida uu muraajacayn karaysaa wixii chart of accounts kaaga insha Allah chart of accounts waan arki doonaa wuxuu yahay marka chart of account-nadii uu kugu diyaariyay ku tusayaa haddaad wax iska bedelaysid haddaad wax ku ziyadsanaysid marka imika inagoo kale haddaan tan ugu ziyaadin ilaahno tanna naga qaad tanna naga qaad soo soco adigu marka aad sida u eegato wixii shirkadaada aad isleedahay account-kan ku anfacaya ku soo darso wixii aan ku anfacaynina iska qaad imika insurance-ka kale naga qaad baan leenahay يعني سيدا ونو ايغو وحي كو انفع ka qaado wixii kalena tigtaayr ka qaad nagastaan lana congratulations balgaari waad interview-gi waad soo dhameysay good satabaan lana marka halka waxaan ku soo dhameynay interview-giina laga soo maray sida shirkadeena loogu sameeyo oo company file-keena loogu abuuro marka wuxuu ku yiri waxaad halkan kaga darsataa dadka aad ganacsiga la sameeysid waa macaamiishaadii waxa aad bixisid ama aad iibisid product ama service-ka xaggan kaga dar bangiyada aad leedahay xaggan kaga dar iminka inagu xagga kagama darayno laakiin waxaan insha Allah arki doonaa oo dhiganaynaa meesha si fiican aan uga dar lahayn marka halkan iminka start working man lana kuwan marka kugu soo furfurmaan tartiibtaada iskaga xig sida maxaa noogu diyaarsanay programkani shirkadeeni baa sida noogu diyaarsan. Assalaamu calaykum.